رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام أحاديث رمضان وبرنامج aynu ku soo qaadan doono qaar ka mid ah axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. رواه مسلم. وفي رواية: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. رواه البخاري. وفي رواية: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. رواه مسلم. وحو عبد الله بن عمر إلهي أساق إيو أبيس عمر بن الخطاب رالها كهذا كورنيا النبي صلى الله عليه وسلم ويري waxaan arkaa in riyadiinnu ay ku midaysan tahay 10ka dambe ka raadiya tiradeeda kinsiga ah haldheerida ah. waxaa wariyey Muslim. arrintani waxay dhacday kadib markii rag asxaabta ka midihii ay ku wada riyoodeen oo la tusay hameenka laylatul qadriga. riyadaas ayaa nebiga loo sheegay sallallahu calayhi waaalihi wasallam. markaas ayuu hadalkan yidhi. riwaayad kale waxay ahayd: waxaan arkaa in riyadiinnu ay ku kulantay 10ka dambe ee qofkii ahaa ku dadaalaheedu ha uga dadaalo 10ka dambe. bukhaari ayaa wariyey. riwaayad kale sidoo kale waxay ahayd: ka raadsha laylatul qadriga 7da dambe. iyadana Muslim ayaa wariyey. haddaba waxaa la gudboon in qofkii raba in aysan seegin fursaddu uu 10ka dambe oo dhan dadaalka joogteeyo isaga oo weliba labanlaabaya acmaasha uu samayn jiray. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.